بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka koobaad aad iyo aad halkan uga mahadnaqaynaa haddii aan nahay wafdigii ku maqnaa hawsha dhammaan shacbiga Somaliland dibadda gudameedu joogaba gobolada oo dhan qaybaha mujtamaca oo dhan axsaabta mucaaradka oo siyaasadda wadaagno golayaasha dadweynaha kala nooca badan ee aqoon-yahan leh ee dhalinyaro leh ee haween leh ee reer miyi leh ee reer magaalo leh ee beeraley leh taageeradii iyo wadanimadii iyo shucuurta ay u muujiyeen qadiyadooda iyo sida arrinta uga socdeen uga dagaalgaleen aad baan ugu mahadnaqaaka waftiga iyo hawshiisa waxay ila tahay in laga dherigsan yahay oo social media aad loogala socday idaacadaha waxaana ugu muhiimsan waa shirkii ugu horeeyay marka laga reebo kii London 2012 oo dowladda badan isugu yimaadeen London oo ahaa kii ugu horeeyay inaga iyo Soomaaliya lagu wada hadashiyo oo uu ka soo baxay go'aanadii daba soconay ee dhaxgalka ahaa oo ugu horeeyo in bariga dhawaad kontumeeyo dowladda halka yimid laga soo saaray inay Soomaaliya iyo Somaliland yihiin laba entity ama laba dhinac oo siman dhinac walba oo iyagoo si wada hadlay hase yeeshee 2012 laga bilaabo ilaa maanta 2008 sanadood wada hadaladii halkaa iyo niyadamaantii ay ugu tagnay iyo go'aankii London ka soo baxay muu helin fagaare lagaga wada hadaladu si ay u dhaceenba waxay ahaayeen kuwa aan horan loo wadin oo ciday dhexdhexaadinaysaana aanay dhexdhexaadin dhigin dooda la gelayana aanay fagaaraha cidi joogin caalamihi dabeetana qolada Soomaaliya ay ahayd arrin ay ku marmarsadaan ay ku wareegaysano wixii maxay ahayd kalsoonidiyo walaalnimo iyo lagu wareegaystay fagaaraha halkii laga soo qaaday la dhanaa caalamka inoo ogaa lama helin fagaara laga wada hadlo shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dawladii ugu xoog weynaa shiray iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dawladda Mareykanka ugu horeyso oo ay ka soo qayb galiyeen Yurub EU oo dhan dawladaha Yurub xafiiska matalayay Afrika kii matalayay African Union dawlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilihii loona xil saaray dawladda Djibouti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaaliya dhaqankeed yaqaan ee garanaya waxa la isku hayo oo marka la murbadoodu waxay tahay halka la iska diiday garanayo kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arinta dhexdhexaad ka noqdo hogaamiyada maadaama ay horanta waxaan inshallah inuu mahadnaqo dhammaan haddii Soomaaliland nahay anoo dalka Soomaaliya dhulka hadaya cid shirka soo qaban qaabisay ee fagaaraha ogolaatay ee arinta 12 London laga bilaabay intii dambe sacsanay in laga wada hadlo iyo dawladda Djibouti oo xil weyn iska saartay hawl badan oo gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana u xusuusnaanaa taariikhda shirka wixii laga yiri iyo wixii la wada yiri waa dhageysateen ku celimay saddexdii cisho oo dambeeyay baan ka hadlay shirka markii la dooday cudurada dawladda soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dawladaha oo ka Mareykanka ugu xoog roora waxa loo go'aamiyay la yiraahdo arrinta waa culusta markii horreysay in la garabsado arrinta waa culusta hadday culus tahayna oo dad camadsa u kala sareeyaan baa loo guraa waxaan u diiday xageen ka bilowna waxaan ku niriday waxaan bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyay horta hal fulin markaas la bilaabi doonaa hadaan tii hore la fulin haba yaraatay haba weynaatay hadaan ku hore la fulinay maxaa tuduma laga bilaabo
sidii baa lagu guddoonsaday waxaa loo saaray guddi wasiirka waxaan doonayaa inaan halkan ka xuso oon idiin sheego guddidaa wasiirada ah iyo adna oo wasiirka roona ah iyo maxamed biixi oo wixii uu aqoon iyo awood hayay maanta shirkaa kaga qayb galay oo isla la socday oo telefoonka lagula socday iyo wasiirada shanta halkan fadhiya maxamed biixi baa shirkaa ku jiray oo isagu Nairobi kaga jiray halkaa waxaa ka dhacay shir aad iyo aad u adag waxaa hubaala shanta halkaa fadhiya afartaa wasiiriyad saddexdii cisho dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenkay ugu soo horeeyaan tobankay soo baxay saacadda qadada mooyinta kale kursi baa lagu fadhiyay inta badan iyadoo la cadaysay dhiibi karayaa bannaanka iyo gudaha loo soo baxayay waayo dadka nala doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira nasidaradu waxay ahayd dadkan aan murmaynaa waxa jira ee waaqiciga ah dad aad uga dhagsan may ahayn ama dareemaya halka ay xumaddu maraysa iyo waxa jira nasiib wanaag dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba aniyo saleebaan waxaan odayaal noqono war baruuk hadiya degdeg mayne inaga hadan leh baruuk hadiyaha soo boodin aan ku celino halka ay ka soo boodeenba nasiib wanaag xalay saacad dambe ayaa la soo gunaaday annagu xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa runboosa laakiin dowladda Jabuuti baa guntiga isha iska dhigtay madaxweynaha oo isa soo taago in ma waa la kala gar qaadanaya waa inaan soo saara communication lagu wadayo waxa la wehelinayay dowladaha shirka waday oo qolada Mareykanka ugu weyntahay oo yiri ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garnayay waa loo kala gar qaadanaya wixii ka soo baxayna waa maqasheen qodobada ah iyo waqtiyada la soo qabtay markii hore ee arrintan la weydiiyay waxaan ku galnay ma doonayno shir inta la sii yimaado la salaamo walaal kala tagay haddii hawsha loo galayo si dhab ah oo mudaysan oo mid waqtigeeda la qabanayo oo ama lagu heshiiyo ama la isku diiday si dhab loo wada hadlayo diyaar baan laakiin uma baahnin tufooda ugu galaya iyo tu cid sawir lagu tusaayo iyo to abata maxay ahayd mudaharaah midna ma rabo horta shirka nuxurkiisu waa ka waanu soconayaa marka saddexda qodob ugu muhiimsan yihiin tii dhaqaalaha oo ka dhalagsantiin oo soo taageen inama meesh joogo wardi anaga dawladii dhaxaw anaga caalamka la midna idin kala ma ictiraafsana oo kulli cidii ku dooratay iyo cid aad u taliso oo ula tag anaga wadina wayne anaga isoo madax banaan caalamka soo joogsan taas oo ay si dhab ah ugu yiraahdo qorada wax bixisa Mareykanka ugu wareeya annagu Soomaaliya oo dhan baan wax siinayna haddii deyn laga saamaxana Soomaaliya oo dhan Soomaaliyadii hore oo dhan isku soo waxsin haddii idaan heshiis ku ahayn socon mayso sida u qaybsanaysa isoo looysan qeydinka saakin marka waa la iskala soo gudbay ana doortay ictiraaf ah inaga soo ictiraafsan dawladda waxaan kolka aad iyo aad u mahadnaqayaa wasiiradaas hawsha ay qabteen iyo dhibtay ku dhacday oo imikana aanu baahnayn in halka fadhiyaan hor sayr seexdaan ilaa saacadaha hore maanta soo jeedinaya halkaa markaa ka gudbo dadka hawshan qaban qaabiya beesha caalamka mid baynu ka rabnaa Somaliland mid baa laga rabaa qoladaynu saayno waxba kama rabno xamar ma wada hadlayno waynu isaynaa waynu iskhilaafsanahay waynu kala fognahay caalamka ayaynu labadeenu u sheegaynaa halkaynu kala taaganahay oo qadiyadda inaynu caalamka gaarsiinaynaa waayo caalamka dadka isqabto wuu kala saaraa ama wada hadal baa loo kala saaraa ama maxkamad marka caalamka waxaan u sheegnay haddana halkan aan uga sheegaya idinkaa Soomaaliya heshiiye ma soconayso wada haddana ma soconayso waayo beesha caalamka oo Mareykanka ugu tuwaya waxaan u sheegaynaa laba dawladood istogay baan hore ikhtiyaaraya dawladdu waxa laga dudko 19 laba dawlad baan kala dhisay laba system baan kala qaaday waxaad ictiraafteen oo ictiraafkii naga dhaxeeyay siiseen oo dhaqaale naga dhaxeeyay siiseen oo barsoolkii naga dhaxeeyay siiseen qolada Soomaaliya ee marka annaga cidaan naga tagay annaguna yeeri mayno qola adintaa wada siiseen inaanu la hadalno ama u baryatayno ilaa wixii naga dhaxeeyay dhex noqoto oo ku horay horena taasaan u haddana taasaan u taagan waxaanu ku wada hadlaynaa marka la kala gar qaato marka adiga waxa kugu xiran
adduunka caalamku bixinaya aanu odhanayna ka mas-uula intaa muqdisho xukumo hadduu xukumoba ayay bay ka mas-uul yihiin laakiin somaliland caalamku ka sugaysaa waxay ka mudan tahay somaliland mid baan leeyahay qaran baynuna 30 sano ayaynu somaliland qarannimada dhisay inaynu dowlad dhisano 30 sano ka horreeyana dagaal baynu ku jiray habad leh oo dumis leh oo dhibaato leh oo af leh oo xarig leh oo muran leh ilaa maalintii la isku daray habeenkii la isku daray ee aadan cadda la daariyey inagoo niyadsan oo aynu nidhi biqe wax walba wada qaato walaalnimada iyo shantii Soomaaliyeed doona waxa yaab lahayd markuu aadan cadda habeenkii khudbadii akhriyay mudaharaadkii ka dhacay ee iyaga gudahooda ka taagnaa oo 13 ku dhaawacmeen 3 ku dhimatay 300 loo xidhay oo dadkii martida u yimid 400 wafti ahaa ay ka yaabeen dabkaynu maalintii galnaa ilaa maanta aan taagana marka waxa la rabaa halkaynu kaga bixinahay Soomaaliland waxa laga rabaa si aynu u gaadhno guusha oo nimanka inaga oo siman u wada hadalno oo ay ku soo noqoto halkay 60kii ahayd ee aynu wada lahayn ee aynu wada dhisanay ee aynu maantana wada leenahay ee wixii dhexdeena aynu ka saxayno waxaynu u baahanahay dhowr qodob baa laga rabaa ka hore waa nabadgelyo walaalayaal caalamka qancin kari mayno oo ka socon mayno haddaynu maalin walba barkad iyo ijaar isku layno oo maalin walba gurmad reeraad ku jiro dowladna ma doonayno taa waa inaynu bedelnaa 1980 ingiriisku wuxuu yiri haddaad nabadaysaan dagaalada culays xoolaha reeraad joojisaan gobonimadu waa siinaya tiibana la furi maantana waxaad moodaa in qori la cararaya iyo wax yaro bilaa micno ah maalin walba miidiyaha laga sii deynaya dadkuna u dhimanayo yaa dad suqunaya wax siinaya dad xabad soo yaa la hadlaya taa waxaanu leenahay haddaanu ceelyo tignoonu adduunkii la soo hadalnay walaalayaal horta naabad aynu ku wada noolno xalkeena caqli aan ku dayno oo hal la daayo qabaa'il hebla ay tiraysa qabaa'il hebla ciidan soo urursatay wax ka weyn baynu doonaynaa dhibaataynu ka baxaynu doonaynaa biyo ina heshaan baa doonaysa iskuul ina heshaan baa doonaysa caafimaad ina heshaan baa doonaysa inagu wax ma hayno ku heli mayno inagoo sariirno qori maalmo baan isku leeyahay walaalayaal runta markaynu sheegno Soomaaliland nabad baa laga rabaa bariga galbeed walaal waxa laga rabaa Soomaaliland gudaheeda inay noqoto dad bisil oo caalamka iyo deriska iyo qof walba nabad kuma shaqaysata oo aad dad vision leh aragti dheer leh ubadkooda dawladba u dhisaya dadka wanaag kula macaamilaya la maal gashan karo loo iman karo wax lagu aamini karo oo lagu shaqaysan karo socon mayso qofka yimaada dalkan muxuu doonayaa waxay wadaan mashruuc hebel baa la hadlo xaafadeeni baa la geenaya caqli hebel bilaadisa caalamku saa kuma shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyaa dad kala dambeeya oo is aaminsan oo waxay doonayaan caalamka meel u mara meel looga soo hoyda waxay caalamka dhex marana la kala saari karo oo ay ku aamini karaan waxooda markaas lagu maal gelinaya oo cid walba ku imanaysa oo kala soconaysa saddex waxa laga rabaa inay Soomaaliland dhabar adayga u soo muujiyeen iyo dhibaatada u soo muujiyeen iyo baabiya u soo mareen ay ka muuqatay inay fiisha ay meel ku socdaan oo iyagu wax qabsanayaan oo iyagu u dagaalamayaan qadiyadooda ku socon mayso inankii hela bahalka yara telefoonka intuu meel istaagay yiraahdo waa kan iyo kii kale iyo aan wax warahay inankan waanay inoo dhageysan waxa la soo maray waxaan ugu sheegnaa ku dhicin booshii anagu aanu soo maray tii aabaha ay adeerka ku dhicin ku baabada ku dhicin ka tasho waxa doonaysa laakiin caadifada telefoon ma qaadanaya oo waxa doonaya warde adduunka la hortay kala baan mas'uuliyadda kolba cid baa siyaasadda hogaamisa ee imka siyaasadda haya ee golayaal ee xisbiya leh waxaan ka codsanaynaa oo laga doonayaa siyaasiyad mas'uuliyad oo nin kale waxaan ahay golaha ama xisbi baan ama siyaasi baan markuu dadkiisa la hadlayo inuu ula hadlo qof mas'uula oo ka fikiraya Soomaaliland dad xagadaysa la dhageysan maayo xisbiga anagu reehbel la dhageysan maayo gudoomiye xaafadda ku wareegaysanaya meel ina gaarsiin maysa taas inaynu si caalami oo fikrado u baahan oo inanka suuqa jooga ee agoonka ah ee aan cidna galin aanu ka naxin
waxba heli maysidoo meesha wasiir kuma lihi waxba heli maysidoo baarlamaanka cid kuma lihi waxba heli maysidoo xisbigaasi waa reeheba dee walaalayaal haddii dadka hogaaminaya dadkooda ay tusi waayaan wuxuu ku dhiirado ku dabagalo ku ogolaado oo cadaalad dhexdhexaad ah ee waar dadkeena dalka hogaamiyo cidina ma qalimayso inaguna dadka meel geeymayo ma aha aan midiya qalan aan waxna qalan midiyaha aan qarsan aynu midowno dalkaan dhisno habeenkiina in la kala foqfoqo ama ninka xafiiska marka loo tagayana qoro la isugu socdo ma soconayso meel ku gaarmayno caalam baynu u tagaynaa af Soomaaliya baynu ku hadlaynaa waxaasaanu haybaanu leenahay waanu faanaynaa waanu ka wanaagsanahay gob baanu nahdo saanaano waa in guriga laga helaa oo xafiiska laga helaa oo maqaaxida laga helaa oo iskuulka laga helaa oo kayay ka wariba saayay de walaal hadii kale waa jugjuway waxaad geyso falka dambe ee ku jira ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa madax dhaqameedka waa madax dhaqameedkii dalka waa doorasho waa nimanka u dhasha ee doorashada ilaa ay ka dhimanayaan walaalkii ka dhaxlaa meelkiisa ixtiraamkaas dhaqankeena loo yidhi waa mas'uul aan laga dhacay oo waliba lagu karaamaya caaqilka odayga suldaanka balka warta suldaan waliba haduu codad qaato anagu reebar wallahi bilaa tarcib birteen la yaab ee war suldaan saamahay dhaqan waanu ixtiraamina anagoo siyaasiyiin waa ka dambayna koofiyadii baa noo sidaa sidii aabayaashin ahaan jireen de ahaada waa maxay suldaan wuxuu doono ku hadlay oo wuxuu doono sameeyaa ee suldaan markaa mati waad ka baxday xayndaabki waxaan ku soo gabagabeynaa culimadu hay'ad duceyso culimadu iyaga dee inoo haya kitaabka Ilaahay iyo midkii waxaan ka doonaa culimada inay ducada iyo dhikriga Ilaahay badiyaan dadkana ay wanaag ku hanuuniyaan iyaguna aanay firqa noo yeelan marka inuu inta isu geynaaba inuu waxaynu doonaan helena dadkuna naga rawsanaya ninka Soomaaliya ma hadlaya nin noqonaya wax toos ah ku hadli karaya qodobka waxaan dhaafayaa waxaan jira nin muwaadina oo reer Soomaaliland oo 7 sano joogto ku xidhnaa oo arrimaha Afrika xisaab xidhnaa oo tirsanaya cadaalad darrada xukuumaddiisa helin waan kula hadlay dawladda Djibouti farkiisii dib loo furaya insha Allah si aan tijaabo ku gaarin mar labaad waxaan u mahadnaqayaa cidii shirka fagaaraha noo qabatay cidii warkayga gudbisay ee dawladooda u gudbisay warkanaga qaaday iyo hadalkeeni jaanis u horeeyay mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dawladdiina martigelisay Djibouti iyo shacbiga dadkeeda waa u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo waxaan si gaar ah ugu ducaynayaa labada xisbiya mucaaradka oo intii ay tagaynay shir walba tagaba iyagu xagga dambe lagu tajiid ka ahayd maanta inay labadaba hambaliyo iyo codba ku taageereen xisbiyada iyo guddiyaasha ma maamulayaan oo waa majeesana qadiyada waxay kala roorayno taladana way noo taalaa saasaynu ku haynaa markaan qoosataana dhegtana soo qabto waa idin gobol fadhina waa isku qancinayna dadkuna waxay aad uga cabanayaan xisbiyada iyo duulka hadalooda xune aynu iska waanayno aanu ku noqono oday Saleebaan aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhowr isdeed soo jeeday oo inta dhigtay oo daarayni oo ragay taageer taayirana aad iyo aad maxamidsa noo adkaystana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waa salaamantii wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh